Mala Bakery waxay samaysaa shaqada ay qabato waxa waaye inay dubto rootiga oo noocyo kala duwan ah pizzaha shawarmaha macmacaanka oo noocyo kala ah qaar waxaa jira dadka sonkor qaba hadday rabaan in loo sameeyo rooti gaar ah diyaar baanu u nahay rootiyada qaarkood waxaa loo samayn karaa waxaan sonkor ahayn oo laakiin artificial ah si macnaha dhadhankii uusan uga teginin magaranaysaa macaanka ah dhibna aan u keenayn dadka waxaa jira rootiyo gaar ah oo loogu talagalay dadka macnaha jecel wiidka ama qamadiga oo runta ah kaasna waxaanu jecelnahay dadku inay bartaan ma yaqaanaan dadku waxay rabaan rooti jilicsan oo burcad laga sameeyey laakiin annagu waxaan samaynaa bur quality leh waxayna ku xiran tahay qofka kartidiisa dad badanoo waxaa jira shacab aan gadan karin haddaan qaali ka dhigno laakiin annaga waxaan ku dadaalaynaa intii karaanka naga ah inaan qiimaha hoos ugu dhigno maadaama situationka iyo wadciga lagu jiro hadda uu aad u liito intaasaan warbixin idiin sheegi lahaa meeshana waad arki doontaan waxyaabaha aan idiin soo bandhignay maanta qof walba asaga indhihiisa ku arki doona inaad dhadhamisaan shay walba ood aragtaan hadhowna commenteer aad ka bixisaan haddii macnaha aan wax ka beddelayno marka annagu waxaan jecelnahay maamulka haddaanu u nimid gobolka mudug waan qurbaha ka nimid dhiirigelin baanu ka rabnaa annaguna waa dadaalaynaa ma garateen marka waxaan jecelnahay in macnaha aan wada shaqayn dhowna aan wada yeelano baahiyo way dhici kartaa inaan anagu marmar u baahano caawinaad ama oo dhan kasta inna loo fududeeyo annaguna intii karaanka naga dadka shacab weynaha waa caawinaynaa waa qiimaha ugu yar baanu saaraynaa waxaan saarayno zaa'ida ma jiro faa'iido doon weyn ma rabno annagu intaan soo shaqaysan karnay soo shaqaysanay dadkayga waxaan rabnaa inaan wax u tarno oon quudino laakiin wax quality laanu siinaynaa dadkii wixii qualitygii lahaa dadku iyaysa ka bakaylin naftooda iyo caafimaadkooda waa inay ka fikiraan taasaa muhiim u ah waxaa ilaahay mahadiya ilaah meeshaan isugu keenay xafladdan quruxda badan ee sharafta leh ee ku saabsan horumarin iyo maxaan ku idhahdaa tijaaro iyo inay gobolka wax weyn ay u tadho aad iyo aad qolada inoo furtay mashruucan faa'iidada leh waa ku mahad celinaynaa madaxda ka soo qayb gashay oo ugu horeeyo maayarka magaalada isagana waxa weeye iyo nabadoonnada aad iyo aad iyo marti sharafta dhallinyarada aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa kasoo qalkaad ka soo qayb gasheen waxaa loo baahan yahay qof kasta oo ma garanaysaa xoogaa haya inuu magaalada horumarin u sameeyo mashruucan oo kale iyo kuwa lamidkaa way fiican yihiin aad iyo aad bay u fiican yihiin magaalada waxay u soo kordhinayaan faa'iido weyn shacbiguna way ka faa'iidayaan qofka iskalena wuu ka faa'iidayaa waxaan xoogaa yar ku dari lahaa maayarkii hadda magaalada uu inala joogaay marka la samaynayo dukaamada tijaarada ah in xoogaa yar la kala durdurkiyo waxaad arkaysaa dukaamo isku wada mida oo isku wada dheggan oo isku waxgadaya laba makhaayadoo saddex makhaayadoo isku dheggan saddex dukaan oo isku waxgadaya oo isku wada dheggan marka xoogaa waxaa fiicnaan lahayd
in la kala durdurkiyo magaranaysaa meheradaha aad iyo aad waxaan u soo dhowaynayaa ma garanaysaa mashruucan faa'iidada soo kordhinaya. waxaan halkan isugu nimid xafladdan lagu furayo malab beekey oo ah intii uu ka sheekeeyey mulkiilaha iyo waxa weeye meeshaan oo meel caalami ah oo ah xaruntii ugu weyneed suuq barwaaqo dadku aad u degan yihiin oo magaalada meelaha ugu camirana marka meelahan oo kale inaan anaguna deris baan la nahay oo waa degannahay meelahan oo kale aad baan u jeclayn inoo soo dhawaato dadka dibadda ka soo noqonaya oo imaanaya dalkana aad baan ugu soo dhawaynaynaa waa inaanu wax ka gadannaa waa inaanu ku xirnaanaa saysan u kicin oo u khasaarin qof walba meeshu waa ku khasaaraya ka cararin waa inay ku soo dalka lagu soo noqdaa waa in dalka guryaha Nairobi laga dhisanayo iyo hantida meelaha lala aadayo waa in dalka lagu soo ceshaa dadku ka shaqaystaan dhibaatada waddanka taala dhaqaalahaan iyo buuqu waxa keenaya waa gaajada weeye laakiin haddii dadku shaqaysto oo hanti helo waa degayaa waxaan codsanaynaa marka lacagaha dibadaha jira oo Afrika lagu maalgelinayo dalal kale lagu maalgelinayo hadda waxa weeye hantida Kenya lagu maalgelinayo waxa nooga fiican taayada in lagu maalgeliyo oo ummaddu halkan maal gashato oo dadku ka shaqaysto marka waxaan leenahay meeshan waa soo dhawaynaynaa ninkan waa nin wadaniya aad iyo aad buu u mahadsan yahay wixii haystay dalku ku soo ceshay dalku ka dhis dalkiibuna maalgeliyey waanu ku faraxsannahay waanu soo dhawaynaynaa waanu u hambalyeynaa inta ka soo qayb gashay oo ugaaska ugu horeeyo gudoomiyuhu ku xigo odayaashana waa u mahad celinayaa ka soo qaybgalka ay ka soo qayb galeen meeshaana caawa la furayaa waxaasoo alaabaana lagu furayaa oo dee xayeysiis iyo macmacaan iyo adduun laga sheekeeyey waxaan rabnaa inaynu maanta hadda caawa wixii ka dambeeya halkaan isugu nimaadno xarun weyn oo dambey leedahay oo lagu sheekaysto oo odayaasha maaragtay ummadoo dhan gadaal bay fadhiisan ka dhaha waxaa qaada magaaladoo dhan gadaal baa qaada waxay leedahay meelo dhexo xataa lagu nasto lagu fadhiisto waan soo kontroolnay waa meel isku habaysan waa meel isku aadan waa meel barakaysan weeye ilaahayna ha u barakeeyo subxaana wa tacaala waxaan leenahay baaraka allah fiika aad baa u mahadsan tahay dadka soo noqday oo noocaagaas kalena waa soo dhawaynaynaa insha allahna ilaah waxaan kaaga baryaynaa inaa ku faa'iidid waxaa runtii caawa farxad iyo sharaf gaara inoo ah inaannu xarig jar aanu u samaynayno meheraddan casriga ah ee magaceeda la yidhaahdo malab bakery sida uu mulkiiluhu runtii u sheegay waxay ku soo siyaadinaysaa magaalada cunooyin runtii caafimaad ahaan iyo taya ahaan runtii macno weyn u leh dadka reer gaalkacyood arrintaas waa soo dhawaynaynaa waana bogaadinaynaa waa runtii waa xarun runtii si qurux badan loo qalabeeyey magaalada ku soo siyaadinaysa bilic runtii aad u qurux badan waxay ku soo siyaadinaysaa shaqo abuur ay u samaynayso dhallinyaradii Soomaaliyeed waxay runtii qayb ka qaadanaysaa mashaariicda noocaan ah amniga ayay runtii qayb ka qaadanaysaa marka magaalada la maalgeliyo magaalada runtii waxay noqonaysaa magaalo aamina oo ammaano leh oo runtii qurux badan marka inaanu magaalada gaalkacyo aan maal gashanno oo dadku ay noo soo noqdaan oo dadka diyaasbarada ah oo Soomaaliyeed oo reer gaalkacyood ay magaalada runtii ay ku soo noqdaan mashaariicda noocaan ah iyo kuwa kaleba runtii ay fuliyaan runtii ka mas'uuliyad ahaan waxay noo tahay farxad iyo sharaf gaar ah marka caawa waxaan runtii dadka reer gaalkacyood halkan runtii iga daawanaya aan u sheegayaa inay noo furan tahay xaruntan malab bakery waa caways fiican baa runtii laga helayaa soo dhaweyn fiican baa runtii laga helayaa wax badan bay runtii magaalada ku soo siyaadinaysaa ilaahay waxaan uga baryaynaa mulkiilaha xaruntan runtii furay inuu maalkana u barakeeyo mahaladana u barakeeyo inuu noo soo noqday oo hal abuurkan iyo shaqo abuurkan iyo bilicdan noo keenayna runtii waa kula shaqaynaynaa si gaara ayay dowladda hoose runtii u soo dhaweynaysaa waxaanu diyaar u nahay meheraddan iyo ganacsado kastaba ee raba inuu magaaladan runtii hal abuur ka sameeyo waa garab istaagaynaa runtii
garab istaag buuxdaan runtii u samayn doonaa hadduu alla idmo canshuuraadka ayaan ka faragelinaynaa hadduu alla idmo amniga ayaan runtii kala shaqaynaynaa hadduu alla idmo waxaan rabnaa magaaladan gaalkacyo oo runtii meel fiican maraysa inaannu bulsho iyo dowladba intaan isku tashanno inaannu magaaladeena wax muuqata runtii aan ka qabanno runtii meheladdan meel fiican bay ku taallaa oo istiraatiiji ah runtii magaaladana macnay ku soo kordhinaysaa